جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وسورة البقرة آية 110 قال الله تعالى وإذا قيل لهم مركا لغو يراهدو منافقين آمنوا الرمية كما آمن الناس سيدا أصحابته الرميين وكلا قالوا حورنا يا منافقين أن نؤمن ميان الرميين كما آمن السفهاء سيدا الرميين ذاتك عقلك قابا يوكلا أصحابتي كل شيء يقوى عقلك قابا ألا أبو لهيد هو يا إنهم يقوا منافقين هم السفهاء وكو عقل قابا يقوم بأكو عقل قابا ولكن لا يعلمون مقرنا إياه. وإذا لقوا الذين آمنوا ذاتك إلهي رميين مركا لكل مانا قالوا حيورنا يا منافقين آمنا إلهي بان رمينا ورنا وإسكا شهادنا وإذا خلوا مركا يلقون نغضان إلى شياطينهم منافقين تودا واوين markay isku goonin noqdaanna qaalo waxay oranayaan inna ma'akum annagu idinka ayaanu idin wehelinaynaa oo nu idin la jirnaa oo munaafiqnimada idin la qabnaa inma nahnu mustahzi'un waanu ku dheeldheelaynay kaalada sidaasay muuminiinta waanu ku dheeldheelaynay munaafiqiintii buu halkan ilaahay kaga waramay subhanahu wa ta'ala iyayna yihiin dad beenaalayaal منافق رون ماله والنفاق لفتي سكسور جدا رون مركا أصحابته ويوانين شرين سيدو الرسول كبا وانين صلى الله عليه وسلم وانا ذو وحي هاي إلهي الرماية وإيمان ساح الرماية مركا قول كان مهمة قائلكم مهمة قول كان قيمها بضنبا منافقين تلوغي سنية آياتنا وحي دليلو تينوع عطيني ساه mar walba kelmadda xaq inay jirto oo dadka xaq loogu baaqo oo gaal iyo munaafiq midnaba aan looga habranin waayo waa amaana marka asxaabtu iyaga oo munaafiqiinta waaninaya saasay ku oran jireen aaminu kama aamana الناس ka iimaan الناس dadku say u rumeeyeen asxaabtu say u rumeeyeen oo kale marka iimaanka isku mid maaha iimaanu saxaaba ridwaanullaahi calayhim ilaahay baa taskiyeeyay ama amaanay asxaabta iimaankooda fa in aamanuu bimithli maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday u rumeeyaan sidaa idinku u rumaysteen oo kale way hanuuneen waanadaa way diideenoo waxay yidhahdeen sida sufahada annagu rumayn mayno sufahadu waxay ula jeedaan camaar bilaal khabaab suhayb أصحابتي ووينا إيمانكو قنجها جوغي القرآن هي حديث بقى يا مانين كوا سيسفهاك تلمامين مركا قالكو وأكبر سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دينتي النبي إبراهيم وحنا عيب لهاي القفك السفيهة مركا السفه هذه عقل قابنانت قال لماذا كشرته قال كينا قفك مؤمن كابو سفيه كشيغيه إسلام مركا واحد كفهمتي بينت waxa uu heliya inay yihiin kuwo isla weyn ama waxaan ahayn soo haysta waxa kale oo ilaahay uu ku sifeeyay jahli walakin la ya'lamun ma garanayaan cilmi ma leh cilmigu waa laba qaybood oo cilmiga aan ilaahay ku barayn in aakhira ku barayn in xaqiiqadaada ku barayn cilmi lama yiraahdo waa cilmiga maadiga adduunyada gaalada ilaahay uu qoro wuxuu ya'lamuuna dhaahiran min alxayaati dunya muuqaalka adduunyada waxay ka yaqaanaan waynaga arkayno ciriyo dhulba waxay u dhaqaajiyeen wahum aan ilaakhiratuhum gaafiluun laakiin cilmiga aakhira lagu baranay ee ilaahay ku baray ma yaqaanana waa waxyigan walakin la ya'lamuun markay la kulmaan hadaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
qaybtaa dambena waxay tilmaamaysaa inay yihiin kuwo laba shakhsiyadood leh qofka muuminka hal shakhsiyad buu leeyahay meel loogu soo hagaagaa buu leeyahay fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibka iyo dheeftaba farxadda iyo naxdintaba meel baa loogu soo hagaagaa laakiin munaafiqu meel loogu soo hagaaga ma leh maalin walba awrkiisu ku kacsanaya ama wixii maslaxadiisa ah ayuu isleeyahay dhinacan u dhaqaaj kii ashahatay wuu la ashahatay kii gaaloobay wuu la gaaloobay waa waxa siyaasadda casriga loo yaqaano mabda joogtaa ma laha bay yidhaha siyaasaddu ee maslaxad joogtaa bay leedahay waa nifaaq qofku haddaanu mabda joogtaa lahayn dee muslim maaha waxa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey kolkay mu'miniinta la joogaan waa mu'min baanu nahay waa shahaadanay gaalada kolkay la joogtaan gaalaanu nahay bay leeyihiin markay la joogaan taasina waa jariimad waa dembi kale ay galeen macnaha qofka waxaa la doonaya inuu ka mid noqdo min asxaabi almabaadi laa min asxaabi almasaalix qofka muuminkiihi waa saaxibu lmabda mabda buu leeyahy oo kaasuu ku dhimanayaa ku noolyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kaas islaamnimadaasuu ku nool yahay waana ku dhimanaya kan kalena waxa weeyaan maxaan wax ku helaa xaggee wax laga cunayaa xaggee kursi laga helayaa xaggee magac laga helayaa saasuu socdaa ayaddu waxay caddaysay dadka qaarkood oo insiga ka mid ah isagoo ifka jooga in shaydaan lagu sheegi karo waidaa khalow ilaa shayaaiin shaydaan waxaa la yidhaahdaa almarada qofka maaridka ee madaxa adag jin iyo insiba ayaa la yidhaahdaa shaydaan marka insiga qayb ka midabaa dadka mufsidiinta ee dhulbiiska ee gaalada waa shayaaiin bale waa shayطana fulaan wuu sharbatay wuu madax adkaaday xaqii buu diiday شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سورة الأنعام جن ينسي شياطين تودي سوى حيونيس وحكى الصوم مدحت كاذانا والصداع نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول الكلب الأسود الشيطان أي مذوب بيسقى الشيطان ووحبا صوم مدح هذا لقنا حور بطن إنما نحن مستهزئون gaaladiina aanu la jirnaa laakiin muslimka waxaanu la ashahaadanay waanu ku dheeldheelayn dheeldheel bay naga hayda dhab nagama ahayn inay moodaan inaanu la jirno oo isku kaayaha leeyaan oo waxna siiyaan jeedadu intaasay ahayd allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda yacmahuuna iyaga oo ku wareersan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye اشتروا الضلالة بادي بيكو يبسدين بالهدى هنون فما ربحت تجارتهم باع مشتري قوداسي أما قناعسي قوداسي مو ربحين معناه ما فائدين وما كانوا مهتدين ما نهمونين استهزاء قودو ومد بلا معنى ومد حد كذبة ومد حق الرأة استهزاء إلهينا ومد حق مركز صفاتك aayaadka ku soo aroora ama axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybood baanay u qaybsan yihiinoo sifaal sidoodaba kamaalu leh oo mar walba aan wax nuqsaana lahayn sida alraxmaan alraxiim alghafuur sidoodaasee ilaahay magac iyo sifo ugu yihi sifaadka qaarkoodna qaydka marka dabar loo sameeyo ee wax lagu qaydo ama wax loo idaafeeyo ayay leeyihiin ammaanta waana siduu qur-aanku u isticmaalo iyagoo qaydan ama dabran buu isticmaalaa haddii laakiin gooni loo saaro dhaliil bay yeelanayaan taasina sax ma aha oo dee siduu qur-aanku u daayin waa in loo daaya almakru waalkhidaacu waalkaydu waalistihzaa waa ereyadaas weeye innahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan sida halkan oo kale allahu yastahzi'u bih wayamkuruuna wayamkuru allah marka sidoodaa loo daynaya laakiin qeydkaasaa la socda oo lama odhanayo allahu mustahzi'un wa mukhaadicun wa maakirun ereygiio saa u mutaxan oo aan dabranayn lama isticmaalayo laakiin waxaa loo isticmaalayaa khaadicuhum mustahzi'uhum wa yakiiduhum saasaa loo isticmaalaya idaafadaas iyaday la socoto idan markaa ammaan wey marka istihzaaga ilaahay ama hadduu ku dheeldheelay waxa weeye mid ay xaq u leeyihin
وأن كودي حقرنا أهين كإلهي معناه وحو كوغو أتكان دونا إرين أما دادك قار كودو شبها وغو أتكادا صفة الإلهي بيو قادنا يعني صفة المخلوقين لمت مركا داو كوغو أتكانيا لكن مركا آمين سنت هذا قبطو وحو إلهي اسكو صفايي إنانو لمد أهين وحا مخلوق وكدوية أو يساق أو قلمه ده كوغو لبادان ميسو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير sida samciga basar uu isugu sugay uu inaga duwan sida sunba istihzahooda iyo istihzaha ilaahayna uu kala duwan marka xabad jiijidin bayna duwina bayna allah yastahzi'u bihi ilaahay baa ku dheeldeelaya mid iyaga u qalma tusaala ibn abbas baa bixinaya radiyallahu anhu allah yaskharu bihim bulay ilaahay baa ku dheeldeelaya wa habrul umma aalimki ummadda mufassirul qur'an saasu ku fasiraya marka uu sii fasira wuxuu yiri aakhira midalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiintu ee muuminiintu ay jannada galaan albaabadii jannada loo furaya way sii gucleynayaan oo ordayaan markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhaya waa istihzaagi way lugu ee halkaas araxda kaga jabeen suuratul hadiid hada akhrido waxa ay tilmaamay suurada aayad ku sugan ay xusayaan dadkii muuminiinta ay socdo iftiinkii iyo nuurkoodii wata يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات منافقين تي مركا أدون كي هبل الذي يقاني الله صاحب كهاي تلك هاي أيها يسورنا يبلدات كان سراتي يسي افتيم أيها إذن كنا دبقلا ويدبر لغنا أيها كل كاسائل هاي فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم وارده صوتين وفكي تلك هاينا إنو وذا تشوغني محال الله يركن نوغا بختي سنة الباب كان لغو قد مركاسا محال ليه قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى آخر الآيات مركا يقول صوب الدانسان يقول نوركا وحيدين كقادنا أن السوق أيال وحرايا واستهزاء كمت صاليال بدن باكرا مركا إلهي markii ay xumaanta doortay buu xumaantoodii u soo kor u sii badiyay duqyaankoodii wa yamudduhum fi duqyaanihim ya'mahun hunaka farqun bayna al-'ama wal-'amah amah wa wareerka dawaqada oo qofku dawa ku jahay yeelan waayo al-'ama waa indhala'aanta way si kale hadii loo dhigo indhala'aanta qalbiga ayaa la yiraahdaa al-'amah يعمهون واستهل كانوا كلا إن دلأنت إن دهن أي وحكان نقضانا يسمى العمى هو اسم مقصورها ألف كاسيوكو تاجين إذا مركا لمن كاني قلبي جاي كين دلاي منافق قلبي وكين دلاي مركا قفك قلبي كين دلا ولا يربح كدعة شهم لها سيدا قفك إن دهن بيلابا وقضى وخردن وسعود وجرواي مركا همودي يعمهونها كوفا سرين وين دلاي لكن واحد كوفا سر يسوي وريرسين يضل دلانتي قلبي جاب كل عبايت waxa aayada ku xigtaana ay tilmaantay ulaa'ika alladheena ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin waxa ay aayadaasina in ifkan dadku intay joogaan kulli ganacsi bay ku jiraan qofku waxna uu iibinaya oo uu sii bixinaya waxna uu soo qaadanaya dadkii baa kala duwan oo ku ilaahay hanuuniyay wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna uu soo qaadanaya naftiisu iibinaya maalkiisu iibinaya waqtigiisu iibinaya cilmigiisu iibinaya ilaahi siiyay buu ka iibinaya ayuu ka iibinaya wax ka qaalisan oo dambi dhaaf iyo janno ana uu ku soo qaadanaya iyo hanuuna inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim ayat kasi akhir suratu saf كان كلا لكن إيمان لاوها إيبكيس وامح هنون كيبو كبحي أو هلا بو صاقات أو إيمان كيبو كتجي أو قالني موقات أو أخلاق حموقات وكايل هاي المام أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بعضها تركية اشتروا بمعنى استبدلوا الضلالة بالهدى بترك الهدى
hanuunkiina halkaasay ku tuureen baadina way iibinayaan waxa la waxaa adduunyada maanta lala guclaynayo ee dawladda la guclaynaya ee hay'adda la guclaynaya ee uu gaalwado waa intaas alaabtan xuniga iibso alaabta qaaliga tuura ilaahay ka taga oo rasuul ka taga oo diintiisa tuura oo dhaqan xumada iyo qaawanaantii iyo akhlaaq xumada qaata waxa la waxa macaan baa lagu saliday diidayaan waxa xunna way bedel qaadanayaan waxaa natiijadii noqotay famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa khasaare iyo hallow marka dib u eegto 10 tilmaamood bay aayadaha aynu soo dhaafay munaafiqiinta u sheegeen oo ilaahay uu ku sifeeyey 10 kaasoo la inoogu sheegaya inaynu ka firdhanaynu ka fogaano waa alkadib beenti alkhidaac khiyaamo alifsaad dhulbiisnimo alcujb isqancin iyo isla weynaan aldalaal waa hallow iyo baadi cadamu qabuuli lmawcida iyagoon waanada aqbalin atadabdub iyagoo gaal iyo islaam u dhexeeyo kolba dhan u cararaya alistihzaa iyagoo ku dheeldheelaya xaqa iyo ehelkiisa asafah caqli gaabnaan 10 kaasaa ilaahay ku tilmaamay natiijaday dhaxleenna waa maxay alkhasaaratu waldalaalu walxayratu walkhawf khasaare ay ku khasaareen wixii ay ganacsiga galeen iyo baadi iyo wareer iyo cabsi halka waynu aragnay khasaaraha hadii aayadan u dambaysaa sheegtay halowgana aayadan u dambaysay aayada horeba way sheegtay fi dughyaanihim yacmahuun wamaa kaanuu muhtadiin waa halowgi xayrada iyo wareerkan iyo xayraannimadana waxa sheegaya مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خوفك يا عبسدنا waxa sheegaya tusaalaha ku sii xiga aw ka sayyibin min as-samaa marka afarta natiijo ama afarta jawaabood bay heleen markay 10 talaabo xun qaadeen marka dadow iska ilaaliya cudurrada noocaas ah arax jabka iyo aakhira seega iyo alla seegaasa lagala kulmaa iska ilaaliya waa digniin quraanku bixinaya marka halka waxa kaaga muuday inay mudan tahay cudurka in la iska ilaaliyo la yiraahdo nifaaq in waajib tusaalo hadaba ilaahay bixiyo wuxuu mathaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu ka mathal alladhi qofkii oo kale weey ama jamici oo kale ama kooxdii oo kale alladhi kooxdaas oo istawqada naara dab shiday falama adaat ma hawlahu markii uu dabkii iftiimiyay ma hawlahu جمعا وحي هريره سأها ذهب الله بنوره إلها افتين كيبو كقاضي افتين كودي بو كقاضي نور كودي وتركهم وحكقتك في ظلمات مدويال قدع ريال لا يبصرون يقوم حباركين صم وانمن أفلاء صم وانمن دقلاء بكم وأفلائهين عمي وإندلائهين فهم لا يرجعون ما soo noqonayaan iyagu marka waxa weeyaan qof aan dhigana xaq u lahayn kuna dhawaaqi karayn arkina karayn natiijadiisu waxay noqotay inaanu soo noqonayno rajo lahayn marka laba tusaale ayaa ilaahay halkan uu ku bixinaya munaafiqiintu ay leeyihiin labadaba aad ku shabihi karto ama kolba mid aad ku shabihi karto ama iyaga kooxahooda aad oran karto kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin مثل كان صهر يا وحوي منافق وحو لمد يهي با إلها ولي ضد مال فريستو ضبشي طب كي مركو هريره دي ويفتيميه اي كم مفسودين هبينك ايوم الدم الى هيك بختي في ظلمات لا يبصرون marka waxaad ka soo qaado adigoo meel qarfaa jooga roobna jiro daruurana cirka ku shaqlan yihiin iftiinkana u baahan oo iftiinkii uu ku baxayo dam meesha ay tiraado saddex gudcur baa sameeyay gudcurkii habeenimada ama madowgii habeenimada iyo madowgii daruuraha iyo madowgii uu lahaa ku madoobeynta lagu madoobeeyay hadaba qofku haduu baadiye joogay uu garan karay hadii marka aad madow iska dhex joogto markaaga hore oo iftiin iyo dab aanad arag wuxuun baa ku yar biriiqaya wuxuun baad yara bidhaaminaysaa iyo madmadow waad arki karaysaa iftiinna yar yar waad loodi karaysaa laakiin hadii iyadoo iftiin weyn ku baxay dam lagaaga dhiga fartaadan ma arkaysid suuratul waxad ka akhridaa nuur haduu gacantiisa fidiyo qofku ma arkaya xataa
صدح راسا كل مو كايل هاي في ظلمات لا يبصرون marka munaafiqiina waa saas oo kale oo waxa weeye markii hore uu ashahaatay de iftiin baa u baxay iftiinka isagoo haysta ayuu gaaloobay meeshii baa ku madoobaatay marka gaalnimaduna madowgaas ay leedahay iimaankuna iftiinkaas uu leeyahay farqigaas u dhaxeeya oo tusaale cajiib haddii aad u sii fiirsato farqi baa u dhaxeeya hunaaka farqun bayna nuuri wa diyaa nuurka labada eray carabiga iyo diyaaga diyaagu waxa weeye iftiinka aadka u badan nuurkuna waxa weeye mid yar iyo mid weyn ba uu yeeshaa marka ilaahay xaq hore wuxuu soo yiri falamma adaat haddana wuxuu yiri dhahaba allahu binuurihim muu odhanin dhahaba allahu bidawihim hadduu odhan lahaa daw-oodii uu la tegay iftiinkii waxaa suuragal noqon lahaa iftiinkii badnaa baa lagala tegay laakiin in nuura baa u hadhay marka laakiin halkan macnuhu uu yahay nuurkii buu ilaahay ka qaaday waxbaba uma hadhi weeye meeshu way madowda waayo daw-a ka badnaa nuurka waa latiifo jirta wey latiifada labaad ama faa'iidada kale waxa weeye nuur iyo naar baa jira markii hore istawqada naaran bahay dahaba allaahu binaarihim muu odhanin markii dambena ee muxuu yidhi binuurihim farqiga jiraa waxa weeye naartu nuurna way leedahay kulaylna way leedahay markii hore dab bay shiteen dabkaasi iftiinna wuu lahaa kulaylna wuu lahaa marka kulaylkii waa loo reebo iftiinkii unbaa laga qaaday macnaha uu tusinayo dahaba allaahu binaarihim aanuu odhanina binuurihim yidhi naartu faa'iidaday lahayd oo nuurkaaba laga qaaday laakiin kulaylkay lahayd waa loo reebay arinta mulaaxadada kale waxa weeye ama arinta kale aynu fiirinaynaa nuur iyo dhulumaat quraanku markuu xaq iyo iimaanka ka warramayo wuxuu yiraahdaa maxay nuur gaalnimada markuu ka warramayana dhulumaat sidaasay to xaq waa mid kaliya faraarama leh manafil qara dadka xaq doonayana way midaysan waxa la yiraahdo baadiduna waa ku nooc ayay ka dhigantay gaalnimadu waa imisa nooc arinta kalena way ku jirtaa sababta nuurkana mid qura looga dhigay ظلمات كان وحفر بدن لوغا دغاي وهذا ما اقوله واستغفر الله والله سبحانه وتعالى اعلم وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى